السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة إيه أبشر حسن اشتفتم أنيقو أهمنا محمد عبدي جنالك أبشر حسن اشتفتم ألا بإذن كل ذاك بروجرام كسابسن علم النفس إيه علم البلشرة سوشيولوجي und سوسيولوجي أما psychology and sociology أن فيديو وحو كسابسن هاي أن عرورها يريركا حنانوينك عرورتا أما إسكولة مركل لجيو مركا قار بروبليمو كلا كلمة familada dabcan wadankan Jarmalka ku dhaqan maaragtay ama hooyooyinka kaligood caruuraha haysta ama maxaa la yiraahdaa familada maaragtay ama waalidiinta caruurta haysta waxaan runtii jirta in mararka qaarkood aanan la cadeyn karin problemada qaarkood in ay yihiin yani problemo waaweyn oo markaas arrimo kriminal ah noqon karaan oo markaa dawladii iyo ay u xil saarantahay askartii iyo problemada qaarkood in ay yihiin yani wax oo markaa qofkii uu ismoodsiiyay laakiin wax jira aanan ahayn waxa jirta laakiin mararka qaar oo inta problemkii waaridkii wixii iyagu ay dareensan yihiin ama caruurtii waxay u sheegeen ay wax jira ay yihiin kadibna waaridkii ay danta ku kalifto marka hore inuu qaar sibil ah yani maxaa la dhahaa uu u raadsado uu dacwo u galo ama uu u raadsado wadankan Jarmalka marka waxaa ka jirta in la yiraahdo Gerechtigkeit ist teuer ama maxaa la dhahaa Gerechtigkeit kostet ja cadaaladu lacag bay joogtaa ama cadaaladu waa qaali oo dabcan maxaa la dhahaa markay noqoto ina adigu dacwotid oo aad maxaa la dhahaa abukaata iyo qabsatid oo maxaa la dhahaa process aad maraysid dacwo ah ama aad cadaalad raadinaysid waxa khasaba inaad lacag lagaaga baahan yahay iyo dhaqaale xoog leh maadaama taasi maxaa la dhahaa mararka qaarkood ay adag tahay halkan waxyaalo badanaa la fududaystay oo la fududeeyay sida caymiska caafimaadka oo kale baa waxaa jira caymisyo la galo oo qofku uu maxaa la dhahaa in ii sheeg markuu family yahay oo waalid yahay markaa maxaa la dhahaa asaga iyo caruurtiisa iyo familkiisii oo dhan ay maxaa la dhahaa caymiskaas member ka noqon karaan caymiska maxaa la dhahaa qaabilsan dhinacaas maxaa la dhahaa dacwooyinka ama maxaa la dhahaa in ii sheeg justiidka ama maxaa la dhahaa justiceka waxaa la yiraahdaa Rechtsschutz baa la yiraahdaa lacag badan ma joogo bishii waxaa laga yaabaa 15 euro ama 20 euro in laga qaato caymis kale waxaa jira asagana markaa wax adiga aad halaysid ama caruurtaada wax haleeyaan asagana maxaa la yiraahdaa ka bixinaya oo asaguna saas oo kale member ka noqonaysid caymiskaasna waxaa la yiraahdaa saax farsasharon waa qof walba family ah waa u baahan yahay waa xataa hadaadan caruur haysan waa u baahan tahay marka labadaas caymis horta dadku waa u muhiim problemkan kale hadda usoo laabto caruurta xanaanooyinka caruurta ama iskuulada ka soo gaara runtii family waxaa jira halkan ay yani sheega in problemo noocaas ay kala kulmeen laakiin wixii aan wax la cadeyn kara aan ilaa ay hadda aan kulay anigu maqal oo la haynin laakiin familkii ay dareensan yihiin in khalad halka uu ka jiro aniga marka shakhsi ahaan waxaan aan is-iri dadka walaalaha ah inaad la wadaagtid wixii maxaa la dhahaa adiga aad ma aragtaa u aragtid qaabka ay at least dadkaasi caruurtoodii ilaah baa wax badbaadin kara laakiin at least markaad kaligaa wadan ku tahay ama kaligaa aadan ahayn laakiin aad ma aragtay dadkii wadanka u dhashay ama maxaa la dhahaa aadan aqoon fiican aadan isu lahayn wadankii ruulkiisii iyo regulationkiisii ama dhaqankiisii iyo ma aragtay aadan aqoonin iyo luqadiisiina ay iska sii adag tahay problemkaagu waa sii siyaadaya oo problemkii adigiina dadkii cadow baa isu arkaysaan oo maxaa la dhahaa waxaa dhici karta problemkana meel walba inuu kugu qabsan lahaa waa dhici kartaa laakiin at least haddii aad ama wadan Afrika ama Soomaaliya ama meel kale kaaga qabsato waxaa laga yaabaa
يعني qaabkaad mari lahayd inaad taqaanid iyo dee meel aad dhaqankeedii iyo luuqadeedii iyo wax walbaba iyo qaabkaad xalka u raadin lahayd aad taqaano halkaan oo kale waxaa laga yaabaa xalkii inaadan aqoon meesha ka raadin lahayd iyo ciddii aad weydiin lahayd iyo wadada u mari lahayd marka waxyaalaha ugu fudud baa waxay tahay inuu qofku marka ugu horeysa uu markuu caruur leeyahay sideedaba waa muhiim in aad dee aad ummadan fahantid oo ummadda aad ku dhex nooshahay aad dhaqankooda iyo ma aragtay maxaa la dhahaa fahantid oo dhex gashid ummadii waayo kaba soo qaado ka hadaad maanta Soomaaliya joogtid oo xamar joogtid oo xaafadda Madiina aad degan tahay aadna Hurwa u guurtid waxa waaye dee waad ka dhex baxday bulshadii iyo qaybtii areadii aad deganeed baa ka baxday area kala gashay areada markaad tagtid aad caruur yar haysatid waa inuu dadkii dariska kula noqdo iyo wixii aad isbarataan ilaa halkaasba waxaa ku tahay qariib marka hore ilaa aad maaragtay maxaa la dhahaa dadkii isbarataan dabcan waa wadankaaga iyo dee way ka duwan tahay halka kan laakiin markaa halkaan timaadidna tiyo kale lagaaga baahan yahay waxaa loo baahan yahay waalidka Soomaaliga ahi inkastoo caruur banaanka aysan ku cayaareen halka kan oo maxaa la dhahaa sidii caruurihii Soomaaliya isku baran jireen ee dadka isu baran kareen laakiin qaab ka duwan baa jira halka kan marka waxaa fiican waalidku markay caruur yar yar haystaan oo xanaanada caruurta tagaan in ay familada ku xirmaan xanaanada caruurta ayagana caruuraha keensada ee Jarmalka ah maaha inaa kuwa Soomaaliga raadsatid ama kuwa ajnabiga ah kaliya raadsatid waayo hadhow hadii problem ku qabsado kuwaas waxay ka caawin karaan ma jirto laakiin marka familada Jarmal aad taqaanid oo maxaa la dhahaa at least waxbaad weydiin kartaa yani problemkaaga aad u sheegi kartaa xalka xagee wax ka raadsadaa qaar baa abukaatayaal dadka qaar baa taqaatiir qaar baa qofku yaqaana oo aad asxaab la noqotay wuu ka duwan yahay qof oo ma aragtay aad maxaa la dhahaa caruurihiina ay meesha wada dhigtaan oo aad nabad kaliya istiraadaan eedan aqoon isu lahayn marka waxaa fiican marka xanaano caruur cunugaaga geysid in aad isku taxallujiso xataa haddaadan luuqadda aqoon anagoo luuqad aqoon baan geyn jirnaa caruurtayda xanaano caruur marka waxaa loo baahan yahay luuqadda xataa haddaadan aqoon dadkii inaad tustid inaad rabtid inaad ma aragtay meeshaan qof ka mid ah ummadii aad noqotid taasina waxaa kuu fududaynaysa caruurtaada caruuro isbaranayaan ay isla cayaarayaan caruurahaas waalid bay leeyihiin waalidkaas maxaa la dhahaa markaa aragtiin in caruurtiini ay ma aragtay caruur asxaab camal noqdeen oo isku xirmaday caruuruhu iyaga israadsada qofkaas oo kale inaad markaa waalidka ku xirantid ayagii casuntid maxaa la dhahaa kafee u samaysid sambuus u samaysid caruuraha wada ciyaaraan tiraahdid ayaguna way ku casumayaan markooda meelaha maxaa la dhahaa shbiil balaatsiyaasha aad ma aragtay dadkii maxaa la dhahaa balan ku dhigataan oo ku kulantaan maxaa la dhahaa caruuraha ma aragtay marmar isu soo kaxaysaan oo tiraahdo maanta anaa kaa soo kaxaynayo maalinta kale qofkii asagaa kaa soo kaxaynayo oo kuu keenayo in dadkii maxaa la dhahaa xiriir la samaysatid taas wax badan bay kuu fududaynaysaa midda kale in aad maxaa la dhahaa xanaanada caruurta laftirkeeda waxaa jira waxyaalo badan oo ma arkin oo aad ka qayb qaadan kartid oo aad ersiyaninkii aad isku baran kartiin gabdhaha caruurta haya oo maxaa la dhahaa waxaa jira maalmo oo la iscasumo oo kafee meesha lagu wada cabo waalidkoo dhan ay yimaadaan oo groupkaas yani groupka kaliya oo maxaa la dhahaa xanaanada caruurta marmar oo xanaanada caruurtoo dhan groupada ay ka kala kooban tahay waalidkood ay kulmaanna way jiraan oo maxaa la dhahaa dee xanaanadii caruurta feesta lagu sameeyo laakiin gruubaha bishii hal mar may ahayd ma aqaan iyo saddex mar maxaa la dhahaa saddexdii bilowda mar waxay ahayd ma xasuusto waa la iscasumi jiray oo waalidku isugu imaan jireen aniga intaan ka xasuusto hadda marka waxaa kuu fudud adiga inaa maxaa la dhahaa ka qayb qaadato waxaa jira eltern fatrator wax la dhaho ama maxaa la dhahaa eltern forstand oo la doorto maxaa la dhahaa group walba wuxuu leeyahay eltern fatrator laba dumara ama aabe iyo hooyo iyo wixii hadba la doorto dadkaasoo dhan inaad isku xirantid inaad ka qayb qaadatid marka xanaanada caruurta ma aragtay feestooyinka loo sameynaya inaad sambuuskaaga geysid inaad canjeeladaada geysid inaa maxaa la dhahaa ka qayb qaadatid ma aragtay markii wax la dhisaayo kale buunan baawga iyo maxaa la dhahaa in ii sheeg ma aragtaa marka la sharsharaxayo dee decorationka iyo wax loo sameynayo
xafladahaasoo kale inaad ka qayb qaadatid in lagu arko qof present inaa mar walba tahay in aa waalidka kale la hadashid oo contact la yeelatid oo dee aad dadkii ku xirantid maxaa la dhahaa waa wax fiican intaa waxaa dheer maxaa la dhahaa in aad ka qayb qaadatid ama aa caruurtaada maxaa la dhahaa meelaha kale ay waalidka kaleba caruurahooda geynayaan sida waxaa jira caruurta brograamo oo isboortiga ah oo maxaa la dhahaa yudiyudsuga iyo maxaa la dhahaa karateega ama maxaa la dhahaa tuunanka oo ah maxaa la dhahaa qaalmo rogodkii iyo meelaha caruurta ama ishwimanka waxaasoo dhan maadaama caruurahani ay banaanka ku cayaareen waqtiyada qabowga meelo la geeyaa jira oo member laga noqdo ayagana farcayna weeye oo aan member ka noqonaysid lacag yar baa lagaa qaadayaa kadibna maxaa la dhahaa caruurtaadii caruurihii kalaad ku baranaysa caruurahaas ilaa iyo waxay isla socon karaan caruurtaada ee iskuulka hoose ay ka tagaan oo maxaa la dhahaa ileen dad isku area degan baa tihiin waalidiintii hadhow waxa waaye markii qof la yaqaanaa tahay haddii wax problem kugu dhacaan ma aragtay qof dad leh camalaa noqonaysaa ma ogtahay dadkii marka qof aad taqaanid dee waxaa leedahay qofkan maxaa loo dhibaateynayaa waad ka hadlaysaa marka ilaa iyo gurunta shuulaa xataa haddii macallimiinta isqabataan haddaa ersiyiinka isqabataan waa la idin dhex gelayaa dadkaasaa maxaa la dhahaa dadkiibaa ilaan taqaanaa qof dadkii ka mid a laakiin qof soo gelayo baxaya markaa tahayd keliya huruga kusii jira dee dadka kuma yaqaanaan cunugaagiina dadka uu ku dhex jira ma aqoon karaysid adiga laftirkaaga adigina xataa problem bay taasi kuu tahay marka insha allah videoga haddii kale ugu dheeraanaya intaasaa aan kusoo gabagabeynayaa videogan dee khayr baan rajeynayaa ilaahay ha fududeeyo arrimaha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu